السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها كسودة وهذا وبرنامج كيني أنا جمع والبسودين جري 4 minute أما 4 دقيقة هي الحمد لله. برنامجكم حين قلت لي إنه إن بدن الله سبحانه وتعالى كحسوسنا الله سبحانه وتعالى أننا إن بدن وقمهت عيلنا نمعوينكو إنسيي وآية نمعاد الله سبحانه وتعالى إنسيي هدينو ترينو مكو بكرو. برنامج كان مانتا وحين قاقهد لينا aragga ama qaybta aragga ee Allah subhanahu wa ta'ala ina siiyay bilaash inagu siiyay araggu sayna ognahay waa laba waa mid qalbiga ah oo ka muhiimka ah Allah subhanahu wa ta'ala ee nuurka islaamnimada inuu qulubta kuugu tuuro iyo midka ah indhaha ee aynu kaga leexano dhagaxaanta dhirta bini'aadanka ku aragno wax ku qoranno wax ku karsanno wax ku aragno labaduba nimco Allah subhanahu wa ta'ala ina siiyay haddaba haddaad indhalacdahay oo aanad araggan indhaha wax ka arkayn alxamdulillaah leh waayo waxaa jira qaar aragga qalbiga la oo aan maanta islaamnimo waxba ka ogeyn ama Allah subhanahu wa ta'ala khaaliqaha ay abuuray aan garanayn oo qalbigooda aragga ku jira ama indhaha ku jira ay xidhan yihiin marka adigu alxamdulillaah leh ilaahayna subhanahu wa ta'ala u shukrinaq oo u sujuud alxamdulillaah waayo ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu islaamnimo inoo doortay maynaan iibsan Allah subhanahu wa ta'ala waa nimco uu inoogu deeqay walaalkay ama walaashay haddaad hadaba muraayad ka cabanayso haddaad ookiyaala ka cabanayso oo leedahay waa qaali ma iibsan karo yacni waxba aad ugu markaayo ta fog baan xidhaa aragga fog ta aragga dhow baan xidhaa habeenkii waxba kuma arki karo waxaad ogaataa in arlada korkeeda kula joogaan qaar jeclaan lahaa inay $1 million siistaan aragga ay ookiyaalaha wax ku arkayaan waayo araggu waa shay aad u cajiiba indhuhu waa nimco kale iyaduna Allah subhanahu wa ta'ala bixiyo waayo qofku wuxuu ugu jecel yahay inuu faamiligiisa arko inuu dadku la nool yahay arko inuu wuxuu cunayo kalarkooda arko inuu wuxuu xidhanayo arka kalarkooda marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin de hana yacni komboleyn garayn ama ha ka doodin ama yacni ha ka cabashaha ka dhiganin muraayad yar oo indhaha korkooda saartay alxamdulilaahi rabbil caalamiin de walaalkay ama walaashay haddaba Allah subhanahu wa ta'ala hadduu arag ku siiyo indho ama ookiyaal xidho ama ha xidhano oo aanad kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala aanad ku akhriyay waxaad ogaataa qaar iyagoon waxba arkayn oo kitaabka ilaahay arkayn oo indhahaas sare xidhan yihiin iyagu kitaabullah xifdiyay oo akhriya oo Allah subhanahu wa ta'ala qowlkiisa ku raaxaysta oo Allah subhanahu wa ta'ala qowlkiisa mar walba carabkooda uu ka qoyan yahay Allah subhanahu wa ta'ala in badanna u shukriya in badanna u sujuuda haddaba alxamdulilaahi rabbil caalamiin inaynu dhahna miyaan ahayn waayo nimco kastoo Allah subhanahu wa ta'ala bixiya nimcada kale way ka sii wanaagsan tahay waana ka sii weyntahay markaad sii eegto laakiin nimcada aragga ta quluubta Allah subhanahu wa ta'ala bixiyo ee qalbiga nuurka islaamnimadu Allah subhanahu wa ta'ala dhex dhigo iyo tuu indhaha bixiyo uu indhaheena inoo saaro labadaba Allahumma subhanahu wa ta'ala ina siin kara cid kale ku siin kartaa ma jirto lacag ma soo siisano cashuur kama bixino maxay tahay haddii Allah subhanahu wa ta'ala kun jeer aynu Allah subhanahu wa ta'ala ku gifno Allah subhanahu wa ta'ala araggeena haddana waa inoo daaya Allah waa ghafuur rahiim iisoo noqda bulay si kastoo iigu gaftaan haddana toobad mar walba waa idin furantay iisoo noqda hadda walaalkay ama walaashay waxaan kugula dardaarmayaa aragga Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay bilaashka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku baro kuna akhri ummadana ku bar insha Allah intaanu dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.